marka assalaamu calaykum soo gala bal soo gala hoogaa yar codkiyaa xumaa marka danta waxay qasabtay in la yardamiyo haddana aan fiirino haddana ka waramo codka siduu yahay marka ii soo qora hadduu codka fiican yahay iyo haddii kale ii soo qor waayo dhe laba celisuu ahaa marka laba celisuu noqday codka marka maama juula waad salaaman tahay laba celisuu noqday codka marka ka warama bal hadda soo qora hadduu fiican yahay waa fiican yahay ii soo qora marka insha allah biidni illaahi kariim howshaa inaan wadanaynaa marka dhibna yaan loo arkin canaanta dad ma canaananayno anaga is canaananoyna anaga is canaananoynaa soomaali baantuu ayaa is canaananoysaa qabo cid kale maanta annaga aan ula dan leenahay ilaahay abuurtay ma jiraan howshaan annagay noo taallaa soomaali baantuway u taallaa walaalayaal dhib ha u arkina annagaa is cunoynaa annagaa walaal ah annagaa taagdaradayna isweydiinoynaa annagaa walaal iyo adeer iyo abti iyo maxaa la dhihi jiray iyo eysinaan dhahnaa annagaa isu ah marka soomaalidayna kale jileecda ah walaalayaalow haddii wax nagu biirin kartaan annaga waa isdhex degnaa wax nagu biiriya haddaydan waxba nagu biirin karinna dee waxa maxaa la dhihi jiray xinka naga daaya xin ma fiicna xinka ma fiicna wax aakhiraba lagu qabsanayo qofkan aniga kuma haysto aniga waxa aniga maanta oo dhibaatada aniga qowmiyadayda haysato unbaan ka hadli haya maahe qofna ma taayargarayno marka aniga dadkaygaan la hadlooyaa dad kale lama hadli haayo ayagaan leeyahy war is abaabula sidaa ma ficna marka cidda qabasho rabto ha soo qorato anaa soo qabanaa meeshaan ra'yi baa lisaga baahan yahay ra'yigaasoo ah war dowlad kasta oo soomaaliya ka dhalata maxaa annaga noo diiday inaan wax ka noqono oo qunsuliyadaha iyo safaaradaha hadda meeshaanayto maxaa la leeyahay north america soomaali baantu ciidaa ka fara badan hal ninna wax hataa biyantonika ma ahan safaaradda war safaaradda soomaaliya hataa biyantonika ma aha war biyantonina kama haysano biyantonigana aqoon muu rabaa waxay ku leeyihin dadka aqoontiina yar wax barta kan waay run waay waxbarashada waan ka liidanaa laakiinse ma biyantoniga waxbarashuu rabaa ya biyantoniga waxbarasho muu rabaa maya waay biyantoni nambara ii dhibihaya marka iga raali ahaada weydiina ciimaadii nambarkii ruqaya hayso marka alxamdulilah rabbilcaalamiin marka waxaa waaye insha allah biidni illaahi kariim hala sheergareeyo like hala yiraahdo reer africa maxaan u malayna qaar haddi inay hurdooyiin marka say markaa u arkaan facebookayga insha allah maama juula inta dhimatay allah u naxariisto kulley waa maqashaan u malaynayaa niman joogaan waxaa la yidhi kantaroolka afgooye oo isugu jira murursade iyo habar gidir ayaa ninka dileen waxayna u dileen mootuu watay meel i gaarsii iyo aniga meel kuma gaarsiin kara caruurtayda ayaan u raashin raadsanoyaa waa la qabtay habadaa lagu dhuftay waa la dilay marka ilaaha u raxmada inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aan leenahay
إن شاء الله بإذن الله كريم إلهي جوينا واحد كأها أيا عرنتا زيتو يوم الآخرة يصور فريسان دونان مركا إن شاء الله بإذن الله كريم كل با نين والبا وحي جيست أيو لي هاي قبيل كو كالمين مايو هو يدا مكو كالمين نيس آبها مكو كالمين يو والله بالله واحد جيستي إلههم باكا قدا أديك ما أنت أودت شيئا ويسا وحان هدسان أردوين إلهي مركي لغا عبسدو حلقي سياد بري وحي أهايين مالي حلقي سياد بري انت هذا واحد اسكديغو الدمير وضي أهايين مرورسده مقار أيو دوا سعودي مقار كي سومالي أردن يا أيغا كشاقين جيرين حمر بغارة دو والأوغيهي يا مركا حدا waxaad arkaysaa kii murursadaha ahaa oo maanta oo xaalkiisa sidaas ahaa ayaa markaa oo waa kan dad uu dilaya leeyahay ya dadkii oo maanta oo wax way ahaayeen oo maxaa la dhihi jiray oo dahabka ahaayeen ayaa maanta hoos galay oo la iska dilooyaa إن شاء الله بإذن الله كريم إله وانا قد إيجي لكن هدنا أناقا إسكت إيجينا بوسكاين أناقا إسجينينا بوسكاين أناقا إسجينينا مركا بين يالسو شيغين والس أوجي هاي قف والبا وحوي هاي والس أوجي هاي قف والبا وحوي هاي والس أوجي هاي مركا الحمد لله رب العالمين كان وقت فوق الله ما هذا كان وقت فوق الله مركا marka raaliga ahaada adeerkiina waxaan saas uma yaqaano markii ilad yar ay timaado ilmas u yeerta ilmaa wax usa sameeyaan marka insha allah biidnillaahi kariim marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ninkaa dhintay naxariistii janna allaha siiyo hortayna ilaaha cafiyo ahlu janna allaha ka dhigo ahlu janna allaha ka dhigo waaba yahayba ahlu janna allaha ka dhigo insha allah caruurtii uu ka tagayna waalidkooda samir iimaan allah ka siiyo ilaahay weyna waaxidka ahaa maanta dhib allaale dhibka maanta la marayo waa mid asaga awooddiisa iska leh asagaa koonkan iska leh nin kale awooddaa iska leh ilaah abuurtay ma jiraan wuxuu doona ha ahaado awooddan hadda la sheeganayo xilligii siyaad bareba ma jirin awooddan hadda ilaahay qofka ayaga siiyey hadday macnaha sida la rabay ugu takrifalaana waa fiican tahay siyaad bare maxaa lagu riday xukunka mariixaan unbuu u dhiibaa war soomaali aniga waanba la yaabay xukunka mariixaan unbaa haysataa xukunka daarood unbaa haystaa annaga waxba ma haysan haddaan hawiyanahay annaga waxba ma haysano babababababa hadda maanta haddii hawiyow idinka iyo wixii idinla jiraba haddii howshan gacantiina soo gashay ma dadkaad didilaysaan ya dadka maad dilaysaan dadka maad laaynaysaan ya dadkan ilaahay abuurtay maxaad ka rabtiin maxaad u dilaysaan ummaddan ya wax siisaan iska dhaafee ma dilaad ugu darteen ulamadiina ayaa wax u diiday wax kale iska dhaaf majmaca ulamada soomaaliyeed midda la leeyahay hal ninoo soomaali baantuu kuma jiro waadnana xukumoysiin dowladdiina soo hartay waxa fiican idinkaa isku koobay haddana waxaad noogu daroysin dil war idinkaba waad diideen waxaan xilligii siyaad bare waad diideen
dowladdii siyaad bare waxaad ku riddeen annaga waxba nooma oggola wayna rafaa war waxaas unbaad ku riddeen wixiina maanta idinkaa wadataan been yaa laysu sheegin maxaa cabdulaahi farmaajo soo haray run waay nin daarood waaye laakiinse hawiyuu gacanta ugu jiraa khaasatan murursade ayuu gacanta ugu jiraa waayo dhe haddii asaga dadkiisaa meesha ku yar haddii nicnici keena dee waa la tallaabsanaa maxaa asna tallaabsigaasuu diidoya marka intuu tallaabsigaas diidoy ayuu masaakiintana dembiyuu ka galoya waay asagaa ilaahay doortay ayagiyaa doorteen waa micnaha ilaah ku roonaadee waa u codeeyeen faataxay u mareen qur'aan bay u akhriyeen ya ilaahow soo bixi ilaahow soo bixi ilaahow soo bixi hadda maantana dadkii meelba kuma ogaba dadkii meelba kuma wax siiya daaye ma hadda xamar iyo afgooye ilaah idinku dhaarshe meeqa kilomitira isu jiraan markii asaga madaxweynaha ah xamar qofkii lagu dilay may afgooye qofkii lagu dilay asagoo xamar jooga waxba ka qaban waaye ilaa magaciisa ma ogaa la yidhaahda ma ogaani ama ma ogeyn arrintii qalbi dhagabax ma ogeyn uu yidhi wixii dhacba ma ogeyn hadda waayahaye maanta farmaajow anaaba kuu sheegoyaaba ninkaa masaakiinkaa lagu dilay maxaa la dhihi jiray afgooye oo ilmihiisi u qaraabanayay mootadiisa saarnaa inta kilomitir kuu jirto aniga ma aqaanee 1 miya 2 miya 10 miya ma ogi aniga saas uma kala aqaane kilomitiraadke haddana waaba iska xanuunsadee laakiin waxaan ogahay in afgooye iyo xamar inay waxba isku jirin nin lagu dilay oo masaakiin ah soomaali bantuu ah oo waddankiisa joogo beerihiisa joogo oo kor loogu yimid ciidamadaasna adiga geysay ciidamadii la rabay in walba nin walba dalkii ka soo jeedo inaad geyso war haddii adig nabadgelye aad u geysay aaway nabadgelyada ayagiiaba dad dilooyina nabadgelyada aabay farmaajo nabadgelyadii aad dadkaas u geysay meeshaasayto ayagaaba dad laynooyin waa 30 kilomitir insha allah khayr allah ku siiyo ayagaaba dad laynooyine kuwii adiga meesha geysay ayagaaba masaakiinta laynooyin marka mid jubbaland lagu laayay ya mid jubbaland lagu laayay adiga wax maad u qabanaysaa oo xaggana nin daarood joogo waxba uma qabanaysid dadka been ha u sheegin nimankaanayto oo meesha soo gelgelaya boodhari iyo cabdifataax miamoosh cabdisalaan iyo yarkan reer burcana wari afkiyuu idin daalin dadkiina dhinac karaaca farmaajo iyo xasan cali khayre wax ma soo wadaan haddii idinka kiishkiina la idin buuxinooyana lacag la idin soo dirooyana taas idinka idin jirtaa laakiin wax la yidhaahdo midnimo qaran meesha ma taalo midnimo qaran dadkii noqon lahaaba waa masaakiintiyaaba la laaynoyaabe ay 30 maanta laisku haystaa farmaajo balcad dadaa lagu dhameey jowhar dadaa lagu dhameey waa ka hadli weysay hadda maanta jowhar ma ee afgooye ciidankii adig aad geysay aad lahayd meeshasaan anigu soo xorayna ciidankaaga ayaa dad ku dilay meesha masaakiin oo mootadiisa wato ayaa meesha lagu dilay aday kuu taalaa 30 kilomitir aday kuu taalaa ninka la leeyahy waa maxaa cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre ma badhahayba xasan cali khayre waa nin la magacaawday xilka ummadda soomaaliyeed waxay u dhiibatay maxaa cabdullaahi farmaajo kan xunna asagaa dejinaa kan fiicanna asagaa saaraa
marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan idin leeyahay dhalinyarow jiifka ka kaca aniga dulmi u orda idinma dhihihayo laakiin jiifka ka kaca af iyo maal lug caddin iyo gacan indha iyo dhego dadkiina ku difaaca anoo kale de tawar ma qabo waa hadlooya hadalkaasaan raba inaan ku difaaco waxuna ma sheegoyo ani wixii jira un baan sheegoya ilaahna igu cadaabi maayo ya marka waxaad yeelaysaan danahayna aan fiirsano wixii maanta noo dan ah aan ogaano ya marka okay ninka la leeyahay maxaa la dhihi jiray cabdisamed aadan cilmi kolley soomaali baantu cilmi ma baxsadee kolley soo qoro isoo qabadhe anaa ku soo qabana dowladdan waxay ku fiicantahay aad leedahay adeer dowladdan mid karoon male aad leedahay inaad masaakiintaanayto aad dulminoysiin inaad u sheegtidaan rabaa ani dowlad maba arkoyaan ku leeyahay maqlay sidoo waayo de dowlad sifihii dowlad ay ku noqon lahaydba maba ku taagnaba maca dowlad afkile maad ka maqasheen idinka ya dowladba sifa ayaa dowlad ku noqotaa tan dowlad ma ah waddadii dowladnimo maba haysaba xamar gudaheeda ma dowladnimo dowlad ka noqon kartaa hadda waad maqloysaa afgooya dad lagu dile dad kalena laguma dila hadda haddii nin jile ahaan lahaa jile haddii rooba ha dilo jareer mugowarkiis iskaba dhaafba nin jile dile hadduu ahaan lahaa tignikayaala laiskugu qaadan lahaa maca naftaa ninkaa naftiisa iyo naftaa miyay kala yihiin ilaah markii laga cabsanayo marka waa dhibaato taasi waa dhibaato ayaan dhihi lahaa aniga marka insha allah biidni illaahi kariim wallaahi billaahi aniga ma garanayo meeshay farta ka qurunsan tahay aniga ma aqaano insha allah biidni illaahi kariim kolleyba waa arkaynaa sheergareeya dadka maqan ha arkaan sheergareeya ahey sokor simaan saafi aaway dowlad wallaahi dowlad aniga ma hayo dowlad caawayle lama rabo meeshaanayto soo qortaan idin dhahay isoo qabo soo qorta waa idin soo qabana sheega waxay dowladdan dowlad ka ahayn sheega xasan maxamed cumar waa salaamantahay adeer cidda rabta in lasoo qabto ha soo qorato waan soo qabanayaa ballan waaye sheer gareeya live gareeya marka insha allah biidni illaahi kariim waxaa waaye arrintu waxay ku saabsan tahay dowlad haddii soomaaliya laga dhiso dowlad kasta soomaaliya laga dhiso horta soomaaliya waxaa degtaa laba qolo unbaa degtaa waxaa dega soomaali jileec iyo soomaali jareer ninka beentayn lahaa ayaa la rabaa okay soomaalidii jileecda ahayd 1,000 meelooday isku bixiyeen 1,000 meelood ay isku saarsaareen kaba soo qaad ogaadeen keliya meeqa lafoodu iska saaray oo qaybsiga ka galay ya marka
hawiyahana sidoo kale dirta sidoo kale marka masaakimiintan looma ooyaha ah oo ayagana iska dhigeen looma ooya nin noqonayo ma jiro waray awowyaashayna intaan ka xun oo intaan ka xun dadkii la dhihi jiray shambarada intaan ka xun ayaa soomaali jilic kari weysay oo iska celiyeen runtii waya sida taariikhda annaga aan ka hayno war markay lo'dooda biyaha cabbayso neef lo ama intaas neef ari ayaa laga qaadi jiray saasa biyaha ku cabbi jireen oo meesha ku geli jireen ilaa beer dadaaday marooyin lo'na meeshay marto waa taqaanaa hadda xoog adoon waxba lagu siinaynin ayaa xoog lagu gelinoyaa marka taas dhan annaga is yeelna wax hadlaayo ma jiro ya hadda fiiriya soomaali jileec facebooka markay soo gasho waxaad arkaysaa meeqa kun annagana 8 ma dhaafno iyo 9 8 iyo 9 annaga ma dhaafno ayagana meeqa kun hataa caashaq iyo majaajilo ayagoo ka sheekaysanayaan ayaa intaas kun noqonayaan macnaa inta maanta oo fiirsanayso annagana hadda aniga waxaan hayaa 10 haya marka wixii soomaaliya degan xamarti aan ka hadlayno wixii degan afgooye wixii degan jubbaland wixii degan puntland hataa way degan yihiin somaliland ay degan yihiin ilaaha kuu roonaade waxay degan yihiin waqooyiga north america yurub war ma 10kaas ruux ba ilaah idinku dhaarjay ma 10kaasa haddana 9 bayba noqdeenba saasad buu qiimo daran tihiin hay marka maxaa dadku aadna anay waaba yaabanay ani waa qaali mar oo kale waxaan is iraahdaa warniyo maxaaba qaalidaanayto iyo waxaan kuu geynaaba laakiinse ma seexan karo hadda fiiri ada nina hadda waxaa soo qoray adda tifow kolay waa u jeedaan wuxuu soo qoray adeer dhibkan soomaali ilaaha ka qaadi kara adeer dhibkan soomaali ilaaha ka qaadi kara run waa ilaaha waa ka qaadi kara laakiin wax kasta sababaa la rabaa haddaadan adiga dhaqaaqin adeero waxba ma helaysid wax aad helaysid ilaahay abuurta ma jiraan qofka wixiise dhaqaaq buu ku raadsadaa soomaali ma aha soomaali ma aha been yaan isu sheegin jireer baaba i leedahay be ya addoonaad i leedahay marka soomaali wayseed ii leedahay ani ya soomaali ma aha idinkaa kala saaray awowgaagaa kala saaray ayaydaa kala saartay ya ayaydaa dagaaladan waxaan arkayay ayadoo la dila jareerka waa ayayda ya marka maxaa aniga markaasayto aan dhoorsanaa oo aan meel u fadhiyaa oo aan leeyahay farmaaja io imaana axmed madooba io imaana hebloba io imaana war cid ku imaanayso male cid ku imaanayso ilaahay abuurtay ma jiraan haddii adiga iska kicin waysidna haddii adiga iska kicin waysana arrintan iyada ah aakhiro ilaaha waa ku cadaabaya aakhiro ilaaha waa ku cadaabaya
okay marka waxaan u soo gelayaa oo maanta tala u soo jeedinayaa kolleyba haddii ay kulligood imaqlaynin mid ama laba ama saddex waa imaqlooyiin war ruqiyo la hadal bal war adiga nabadda adigaa xukunka haysta adigaa jileecdow soomaali jileecow xukunka adaa haysta ilaahay adaa kuu dhiibay maanta ushi ilaah adaa kuu dhiibay ha iska dhigin qof maanta oo waxba ogeyn ha iska dhigin dhibta walaalahaaga ama hooyadaada ama abbaayadaada waddo waad arkoysaa war nabad ayaga ugu baaq dheh adeerow ama abboowe ama walaalow ama abtiyow war waxaan waa laga soo gudbee waxaan naga daaya dheh laakiin aniga hay dhihin nabad uga baaqayni aniga dadkaygaan leeyahay war sidaan si ma ahe addoonsigaan kuma jiri karnee war sidaan aan isu dhaanno ma dagaal baan ku baaqay marka ya aniga dagaal kuma baaqin haddii adiga nabaddoon aad tahay ulummadaada iyo madaxdaada u sheeg dheh war sidaan ma anfacaysa xilli kalaa lagu jiraaye dagaalka iyo waxaa naga joojiya dheh marka ragan ku aqaana ani laakiin intaad soo qoraysaa adeer nabadda ka tali adeer macnaa adeer in lagu addoonsado ogolaaw miya iska aamusnow ware ani ma aamusnaanay waa hadla ani qof xanuunsanaan ahay laakiin waa hadla marka tifo intaasaan kaaga jawaabayaa adeerka iyo aabbaha iyo dadkaaga u sheeg masaakiintaanayto ha laga daayo dulmiga ha laga daayo dad ma dulminooyiin dhaca iyo dilka lagu hayo ha layska daayo ilaaha idin cadaaba ya naarun baad ku gelaysaa maay xoolahan idinka hadda aad duraysiina xoolahan hadda aad dhuraysiinna wax faa'iida waa qoryihiina naarta way naarta maaragtay macal ulummadiina aniga waxa la qarqariyey ma aqaan jileecdiina macal ulummadiina ya majmaca culummada iyo balaaya haddaad qorataan iyo haddii kaleba meeshaas waxaa waxaad rabtaan in masaakiinta noocii rabta ha aata inaad ku dulmisaan maxaa masaakiin hadda markii wax la yeelo majmaca culummada muusoo kaco masaakiinkii lagu korkorayay isagoo nin rag ah xamar lagu korayay majmac culummada soo ma joogin ya intay galeen ya marka aniga haddii waxaa la yidhi qol yimaado waxaa la yidhi masaajidada loo ordaa laakiin waxaan arkoynaa dadkii masaajidada oo mas-uuliyaddeeda hayay ayaaba qabyaaladda agtooda taalaaba ilaah haddii laga cabsanayo aniga cidna wax ima siinayso marka xukun u doodna ma ihi laakiin wixii jira waan sheega ani
marka inta waxaan fariin ugu gudbin rabaa dhalinyarada Soomaali Bantuuda oo degan gobolka New York macnaha waxaan u soo qaadanayo gobolka New York wax kale ma ahan dadkan hal mar wacyigelin ma gaarayso marka waxaan rabaa haddii ilaahay raali ka noqdo Ismaaciil Sane aniga qori qaadi maayo awowgiisa qori soo qaaday ilaa ay haddana waa isdiloysiin olaadiinana ma dhammaanayso marka insha Allah idinkaan idinku ognahay qoriga marka dulmiga waqtigii ilaahay raali ka noqdo ayaa qoriga qaadaynaa marka adeeryaalow marka waxaan la hadlaa insha Allah biidnillaahi kariim sheer gareeya laay gareeya insha Allah biidnillaahi kariim dadka kale say noola wadaagaan aniga waxun kama hadlayo wixii jira ayaan sheegayaa wax kale kama hadlaya ninkii dhibsadana aloosha xanuuntana asagay u daran tahay asagayna dhibaysa aniga waxaas shaqaday maahan aniga waayo dee anoo xanuunsan waxaan intuu soo fariistay aan ummadeyda aan wax oo macnaa wacyigelinta aan ugu siinayo wax kale ma ahan inay toosaan oo ay hagaagaan haddii maanta ummaddaanaytona runta loo sheeginna ya waxba ma hagaagayo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ninaa yidhi soo qabo mulayba khadka asagaan raadinoyaa wixii asagaan hawaka السلام عليكم. calaykum salaam waraxmatullah السلام عليكم. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu halo ولا ما شاء الله هول وناكسن بايسا ولا المعانا واكم مقلان wejigaagana ma arkay meel habeen maad joogtaa halo مال هبين نواجه بنانكا معها نلكن شغل هاي سوق haye waaye iyo meesha joogtana dadka u sheegaya shuukow بابا حاجوبا كيف ya waxaan joogaa waddanka talyaaniga muuskad aad u cuntaan dadka muuska dhameeyey miya aniga digaagada la dhuunta laga siibayo ma aragte digaagada dhuunta jaq la siinayo oo baktigale ku xisaab carabka hataa waa naga cuslaaday ma hadli karno kolley mawduuca waa aragtaan umalaynaa hor u soco taladaada na sii taladeedu waxaa موضوع horta anoo si kalisan ku soo galay waxa uga hadlaysana hoos kuma soo qorin waaye markii horaan soo qoray dhowr jeera iga go'ay dadaa jira waxaa adoo arkaya inaad live ku jirto iska soo gelayaan anigana waxaan ka hadlaya waa telefoon marka mawduuc adeer wax kale ma ahan meeshan waxaa taallaa Soomaaliya markii la yiraahdo markii oo laga bixiyo oo xumaata laga saaro runtii Soomaaliya laba qolo baa degta haday rabaan marka ayaga iskala saaraan Soomaaliya waxaa degta laba Soomaali jile iyo Soomaali jile kala degta male marka Soomaalida jilecda ahayd waxay isku bixisay 20 30 40 farqo
masaakiintana waxaa lagu soo koobay jireer weyne jireer weyne hal mid aan ka dhaho sugaan dhamaystay hal mid aan ku dhaho adeer oo tale anaa ku dhiiba aye marka waxaa way safaaradaa jira oo qunsuliyada jira safaarada qunsuliyada hoos taala صح بينتوني يا جرا بينتوني كوا دولك حاقا war ilaahan kugu dhaarshay adiga wadanka joogtid baka soo qaade hataa nin Soomaali baantu ee safaarada dhulka xaaqayo oo wax laga siinay miyaad ka aragtay maya way marka maxaa ka reebay in dawlad kasta la dhisa Soomaaliya in masaakiinta ay xaqooda u dhicin wayso maxaa keenay oo Soomaali jilicda un isku koobto xukunkii oo dhan صح horta jilaac si kastoo xataa dad u xumeeyo asaaba dhiban horto ma garate kan xabadda ku dhacays waa jilaac kan jidka cunuga dhagax lagu dhufto jilaac leh waa kii baabuurka degta oo shil gala jilaac yaa marka dhibka dadku ku hayo caruurtoodana ka go'an waa aragtay cunuga baawur liiga xamar yaa waa jilaac kan dhagax tuura yaa waa jilaac kan isqarxiya waa jilaac kan aeroboortka Soomaaliya fawd ku hayo jilaac kan shaqada fiican haysta jilaac wanaag iyo xumaatada dhan ayaga isku qaatay ilaahay laakiin loo jeedaaho kor ka daalacanaho wuxuu arkayaa ummadda hayaan waana la tusiyaa gartay soco marka waxaan dhihi lahaa wadanka waa loo siman yahay jilaac iyo jareer wadanka waa la leeyahay ma garatay anigu waxaan nin jilaac ah laakiin dadkan la dhaqmo waxay yihiin qof jareera oo dugsiga quraanka aan la dhamay magaalada Muqdisho banooniga la ciyaari jiray waalidiintooda ilaa hadda xasuusta aan xariiriyo dhanka wanaagooda aqaanamahana wax xumaatan ku aqaana ma jirto midda kale fiidiyowga hala share gareeyo waa muhiim dawladda oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xukumo hal xildhibaan baa ugu jeednaa dalka xildhibaanna looguma jeedo madaxdooda gobol ay leeyihiin shabeellada Jowhar ma garatay waxay degaan Soomaali gobolo badan oo Soomaali degaan jubbada dhexe hoose fikradda iyo aqliga iyo qudaarta la cunayo dhan jareer ka imaada looshooda qudrada la cunayo mooska cambaha saytuunka qudrada wadanka ka soo baxdo dhan yaa tabco jinaale imaada jareer oo jareer hadda wadan ka baxo yaa wax kuu qabanayo ayaga walaalkaa waa xumeeni hadda aniga hadda aniga waxaa ila joogo wiil oo u dhashtay jareer oo laakiin Nigeria dadka la joogo ilaa iyo dad wanaagsan waayo ilaa intaasoo sana isla dhaqmaynay wada diina kala haysanaa laakiin dadka wanaagsan ma jiro gartay markii qaar waxay ugu ammaanaan Soomaalida fiican baa ku jirtaa yaa la dhaqankayga jareer baan dhahaa gartay jareer ha noolaado kii ku xun asa u taala jareer ha noolaado FIFA jareer midda kale halka xildhibaan beesha jareer weyn ee ku leedahay dalxa hurdada ka kaco halka inta filla Soomaali joogo biso dadkiisa wax u yahay adoona dadkiisa wax u qabanayna xilka ka degto majaajileestu noqday majaajileeste meelaha madaxweynaha iyo meelaha ayaa loo yeeraa fadalxow adaa abwaan ee ka hadal markaasuu dadka ka qosle siiyaa majaajileesta laga dhigay majaajileeste
ninkii maanta oo professorkii oo maanta jareer anaa ee dhihi jiray xilligii arbow oo meesha ka xiriirin jiray ayaa maanta majaajilaystaha maxamed cabdullaahi farmaajo isaga way marka jareer xildhibaan ma leh hadday leedahay waxaa la rabaa xildhibaanka cillad kasta waa ku iman kartaa waxaa la rabaa wixii cillad ay timaado maxaa loogu talagalay 6 biloodba mar inay dadkooda ku noqdaan ay dadkooda la soo tashtaan wixii dhibaato dadkooda ay qabaan ay soo qortaan markii baarlamaanka la furo dadka dhibaatada ay sheegaan ma aanan arag nin Soomaali bantu ah oo baxay dalkiisii tagay dhibaato soo qoray oo baarlamaanka istaagay oo yiri dhibaatadaas dadkayga haysata oo ku dooday aniga ma arag adeer wallahi iyo billahi iyo tallahi mana sugayo muufadooda ha iska cunaan bariiskooda ha iska cunaan inta waqtigooda ka dhammaanayo marka khayran ku rajaynayaa marka waqtigana waa igu gaaban yahay dad kalan soo qabanaya adna marka fikradoodana dhegeyso haya baaba dadkana soo qabta message-kayga aan dirayna xawaa hala share gareeyo hurdada halaga kaco insha Allah xuquuqda hala soo dhaciyo salaamu calaykum كلي السلام عليكم ومقويسين حاسدو حبت كبال نينك حاسد حبت كبال حبت لعانا كوغوغا مركا ان شاء الله باذن الله كريم نينك حاسد حبت كبال نينك مانتا او داعد انا او مساكين تا حقوده كهدلي كرنا وهدلي كرا ان شاء الله باذن الله كريم marka saasa inoo wax idan ah reer xamar madaxday xamaran raba inay wax aragto oo dhageysato dhibaatada masaakiintan lagu hayo ya war safaaradda Mareykanka Washington kii jaad ku gadayay safaaradda jaad ku gadayay ayaa maanta wasiirkii waa ninka safaaradda Soomaaliya oo maanta kii duqbilow ay dhihi jireen oo na tusay ya video ahaan noo tusay oo yiri waatan safaaraddii Soomaaliya oo jaadkan lagu gadanayo ayaa maanta ninkii madaxda ka ahaa safaaraddaas ayaa wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya war bal haddii ay ka dhigaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ma awoodi waayeen hataa macnaha بينتوني إني أقدقان سفارة مريكان كواشنطن نين دتك مساكين تا يا سي أسجد دت كيسة داي ماذا وقبته أنا يا دين الله رفادي يهدان واحد ضمن يمدنا أدين الله وانا الترحيلة إدنو دودة يسمله يا لكن دتك كلا والله دودة إن شاء الله دتك هذا جوعان ودودة يعني أنا إدنو دودة ماله مرك أنا وحان رمنا madaxdan Soomaaliya waxa ku qasbay dawlad kasta dhalata dhamaata tii maxal dhijiray siyaad baraab xooga yar rooneedba ka soo bax Abdullaahi Yuusuf Imaw maxal dhihi jiray Ilaahi ku roonaade maxal dhijir kan maxal dhihi jiray Sheekh Shariif حسن وكل جودا حسن أبو ودر نابا بتام بنينك دقي وحسن بتام روح دقي وحسن شيخ محمود يا ومان تجرير دبعتدان هيستا والله بالله أسجع وسببها دا عدا دي لو حدلو marka bashiiro waa damciinan ku soo qabto adeer waa wixii waa ii suurta gali waayay waan ku arkaa inaad leedahay isoo qabo waa marka kuma aanan diidin laakiin say qadka diiday marka
war isweydiiya ilaan soomaalida dhan ma wada xuma horta kuwa xukunka haya way wada xun yihiin nin walba wuxuu rabaa inuu wax cuno ina adeerkiisa meesha keensado ina abtigii meesha keensado masaakiin cid rabta male runtii waya masaakiin cid rabta male laakiin waxaa daacad ah qaar oo banaanka joogaan hataa ulumada Soomaaliyeed banaanka ay ka yihiin ayaa jira hataa uluma jira Soomaali ah oo laakiin ulumadaas aan ka tirsanayn ulumada oo isku magacaawday majmaca ulumada Soomaaliyeed ani hooyaday ma dhalin aabeyna ma dhalin hadday xun yihiin xumaantooda waa sheega ani alxamdulillah rabbil aalamiin marka ulumadaasayto waxaa la rabay inay waddanka ay wax u taraan waayo de xilligii siyaad bare waxaa la yidhi markii siyaad bare uluma toogtay ayaa waddankii hallaabay asagana ulumada uu toogtay wuxuu leeyahay waddankay qas ku wadeen ya de haddaba ay ulumooy maxaad qabataan hay-ad baad samaysateene masaakimiintana sidaana loo baabi'inayaaye waa masaakimiintii aad madaxda ka ahaydeen waaye maxaad u qabanaysiin ulumada maxaad u qabanaysiin waxaa la idinka rabay kan xaq dadaad cunaya inaad tiraadaan xaqan hoy adiga ma lihi daaf xaqaaga ma ahan ya kan xaqa lena aad dhahdid war xaqan ninkaana xaq u leh adiga ma qaadi kartid waayo dhe xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin aan xil qaadi karin xil looma dhiibi karin waxba looma dhiibi jirin sababta loogu dhiibi jirina maxay tahay dee waxba ma maamuli karaba ilaa ummadoo dhan muslinaa loo dhiiboya oo leeyahay bal maamul haddii asaga dadkaas ma maamuli karin maxaa xukunka loogu dhiibaa hadda waxaad arkaysaa ninaa baadiye ka yimid qoryas watay waxaasuu leeyahy ani generaalan ahay aniga generaalan ahay generaal waryaa generaal xasan kulligood kulliyadda xasan sheekh maxamuud ay ka soo bixin generaaliintan aad arkaysaan generaal heblow generaal heblow generaal heblow war generaal soomaaliya wax xisaabanaa joogay anagaa runta idin sheegaynaa waxaa iska leh xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu badan generaalada inta hadda generaal noqotay waxaa arkaysaa waryahoy anaga waxaan arki jirnay xidigle ninka markuu yahay waa inuu 2 sana u wataa kabtan 3 sana inuu wato waay hadda maanta xidigle yahay beri gaashaan la waaye ya beri gaashaan la waaye hadduu baadiye ka yimid waana hadda fiiri mid oo xasan sheekh maxamuud daba socon jiray haddaad aragtid dhaadhaannimadiisa waad yaabaysaaba darajada uu watayna waad yaabi koo hadda farmaajo daba socdana sidoo kale waa la soo qabtay waa loogu tolay ma ninkii sidaa yeelayo maanta oo mas'uuliyadda asaga uu hayay saas ugu takrifalayo ya aniga daacad way ma i leedahay daacad maaha marka anaga xaq baan leenahay sheergareeya xaqayna ilaahana siin kara insha allah run waaye laakiinse meeshan waxaa jira wax la yidhaahdo dadaal haddaadan dadaalin dantaada ma gaarayso hala dadaalo hala dadaalo hala dadaalo okay waxaan rabay dadka dega buffalo ee Somali Bantu message baan idin soo dirayaa qoraal ahaana waa idin soo gelin doonaa insha allah biidnillaahi kariim kolley madax baad leedihiin aniga waxaan jeclaa kolley maalin
idinkana aad diyaar ii noqon kartaan inaad ii soo dirtaan waa qoladan la leeyahay reer buffalo reer yuutana anigaaba idin soo socdaa insha allah biidni illaahi kariim yuutika waan imanayaa insha allah biidni illaahi kariim shirka ka dhici doono kolley lagu soo iclaamiyey maxaa la dhihi jiray magaalada ohio oo xagga oo macnaha oo tacsiyada ah aniga tacsiya ima khusayso tacsiya qof dhintay waaye ma maqle marka waxaasan ziinaynaa annagii maxaa tacsiyey annagaaba nala tacsiyeynoyaaba bal haddii adig tacsiya hadda fadhiisatay wax dhiibtay haddana tii kale lagugu celiyey wax dhiibtay tii kale lagugu celiyey wax dhiibtay maxaa tahay adig marka dad maa tahay no dad ma nihini waay marka waxaad yeelaysaan tacsiyadan naga daaya tacsiya waxaa ka muhiimsan waxaa la yidhi sideedaba daawo iyo ka hortagaa la kala yidhaahdaa daawadaba magacay leedahay daawo iyo ka hortag marna wax bay daaweysaa cudurkii yimiday daaweysaa ka hortag waxaa way cudurkiiyayba ka hortagtaaba inuusan imanin ay ka hortagtaa marka daawada qofka la daaweeyo waxaa ka fiican in macnaha qofka laga hortago daawadiisa okay aniga dad ma ihi insha allah biidni illaahi kariim adigaa dad ah aniga waxba ku dhihi maayo dadnimadaadan adiga hayso ninka la leeyahy waa cabdifataax maxamed xasan adaa dad okay warkaagan halkaasaan uga gudbaa adeerow marka insha allah biidni illaahi kariim hala sheergareeyo haddaan dad nahay iyo haddii kaleba marka wallaahi anaga shaqo kuma lihini af caaytamana waa ruux caaytamayna afkiisa asagaa ku yaala ruuxa hishoodayna afkiisana asagaa ku yaala marka reer yuutika insha allah waan idiman doonaa 3 bisha haddii ilaahay raalli ka noqdo waan iman doonaa maxaa soo haray Syracuse idinkana sidoo kale waxaan jeclahay inaan micna hadday ii suurta gasho habeenle hadday noqoto inaan ilmaha imarsiya aan iraahdo kulley maxamed cabsame ninka la yiraahdo waxaan kaa codsanayaa ugaaskiina iyo dadkii idinka wax idin ah inaad arrintaas iigu sheegtaan haddaad ii diyaar garowdeen iyo haddii kale haddaad i qaabilaysaan iyo haddii kale inaad macnaha bashiir haddana waan kugu soo celiyey inaad micnaha reer Syracusena waxaan u baahnahay in micnaha aad sidoo kale habeenkaas inaan السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وايد السلام دمانتين إن شاء الله أدير ما شاء الله أدير بلي ورا سيتين حالة دينا والله أدير واسكفي عنا هاي نورد أمريكان جوجنا الحمد لله مقالة قبل نيويورك مقالة ريجستر لي الحمد لله وكنا بدون هاي الحمد لله ما شاء الله هذا إلهي هذه أنت جوجتا أنا واحد جوجا أستريا إن شاء الله وطن يوروب ما شاء الله وطن كاسة جوجا مركز صح واي ما شاء الله مركز دمان أمد الصومالية دو مش كجرتنا وسلام يا سلام الله واحد ما سلام الله واحد لقى هلا واحد تانو مالينا معناها دبعت هذا اللوجي استدات كان بيشا وين يجرر وينه قرتي صح واي هرتوا وارن واي waxaanaha Soomaali horta way isdulanta adeero Soomaali way isdulanta meel walba joogto
waxa halkaana dhigana waa xaqdarrada ilaahayna xaqdarrada ma ogola صح khaasatan beesha jarar weyn waxaan kula tali lahay walaalahayga Soomaali waa mid Soomaali way isleedahay anigu waxaan ka soo jeedaa koonfurta kulley waqooyigana dad badan Soomaali waa Soomaali waqooyiga waa weydii waxaan ku yiri dadkan walaalahayna Soomaali bantu ama Soomaali jareer ma degan yihiin markaas ay ugu yiri may koonfurta bisay degaan laakiin aniga kulley aragtideedii aqliyan inay meel walba ay joogaan ayaan aaminsanahay Soomaalina ay mid tahay beesha jarar weyn waxaan kula tali lahay inay iskaashadaan ay walaaloobaan ay wax wada qabsadaan Soomaali wada gacmo wada jir bay wax ku qabtaan markay iswalaashadaan ee ay meel isugu yimaadaan ee ayahooda ay ka shadaan markaas ayay wax noqon karaan laakiin markay waxa way tafraaruq jiro midba meel u tuuray yahay ummad wax ma qabsan karto sida hadda aad sheegtay meel baad u soo socotaa sida hadda aad sheegtay waxaad meel baad u soo socotaa dadka adiga la tasharrabtaa wax baad wada qabsan rabtaan marka waa loo baahan yahay inaad timaadaan aad dadka istusisaan ismuujisaan aad meel u soo baxdaan Soomaalida cadaalad darrada waxa meesha dhigay Soomaali waxa meesha dhigay waxay tahay waa cadaalad darro dawlad walba ha noqoto aragtideeda Soomaali waxaan aaminsanahay mid walba oo la doorto in cadaalad darro uu la yimaado hadda madaxweynaha u dambeeyay Soomaali waxa beed maxaa u dambeeyay ka hadda la siisiday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa tirsanaa waxaan lahaa waan u hanweynay Soomaali oo dhan aan u hanweynay laakiin sidii la filayay sida ay noqoto waxay noqotay kaafiya kala dheeri marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay joogaan waa inay ayahooda ka tashadaan danahooda ay ka tashato hadda waa aragtaa gobolka Banaadir inta hoo malaayiin baa ku nool xuquuqdooda waa la duudsiin rabaa marka waxaan leeyahay beesha jarar weyn biyantooni waxaa fiiri kan dhulka haaqaataa lama siiyo kan dhulka haaqa Maxamed Abdullaahi Farmaajo wax kasta wuu og yahay xaafadda waa beri ku dhashtaa la yiri dhalinyartii la soo koray la soo barbaaray ayuu dhibkii ka kicin waayay oo nin ka yimid maxaa la dhihi jiray laas caanood ama ka yimid kilinka shanaad ayaa madax looga dhigooya ka waran maya taas waa qalad waxaan leeyahay adeer waxaan ku leeyahay cadaalad darrada Soomaali la degtay oo la ragaatay taas ayaa ka mid ah waxa la rabay inuu macnaha cadaalad fiiriyo ma ahan inuu macnaha nin laas caanood ka yimid ama meel kale ka yimid aan waxba ahayn aan aqoon lahayn aan dadka waxba ku soo saa'idi karin ma ahan inuu wax ka dhigo laakiin waxay in cadaalad la fiiriyo haddii si waxa waa cadaalad aan lagu dhaqmayn ummad islaam ahaan nahay ummadda Soomaaliyeed waxa waa dhibaato u dambeynayso dhibaato marka waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la mooday ma uusan noqon laakiin aniga beesha jarar weyn waxaan kula talinaa inay midoobaan ay gacmaha isqabsadaan ay ayahooda ka tashadaan dadka istusaan inay dad jira yihiin inay awood leeyihiin inay xuquuq leeyihiin meel walba ay joogaan bannaan ku soo baxaan waxaan arkay maalin dhexdaas Kismaayo waxa lagu dilay wiil jarar weyne aha gartay waxa lagu dilay waa xaq darro cadaalad darro 6 saac maalmeeda bannaanka lagu toogtay taasina cadaalad ma aha inta ummadda Soomaaliyeed saas loo baabiinayna waxa waa dhibaato ma dhamaanayso hadda fiiri magaaladan la leeyahay afgooye shalay waxaa lagu dilay ninaa lagu dilay oo mootadiisa wata kastanka meesha dadka lagu baaro laba qolaa joogta murursada iyo habar gidiraa la yiri marka way joojiyeen waxaa la yiri meel heblow nagee war aniga meelan ku ordooyaa ilmeyga wax maalanooyaa ee meesha ma aadi kara miyaha bartiya la dhigay waa 30 kilomitir waa yaa xamar iyo afgooye maxaa Abdullaahi Farmaajona meeshaasuu joogaa wax uu ka qabanayana ilaahay abuurta ma jiro ciidamadii wax dilayna waa ciidamadii asaga geeyay oo markuu lahaa aniga waxaan xureynaa gobolka Shabeellaha Hoose war marka ayagiyaaba hadda dadkii xoreynta laga rabay ayagiyaaba dad dilooyinba maya waa dhibaato waa dadkii dawladda ay wax inay xoreen lagu talgal hadii ay shacabka dib ugu soo noqdaan dadka baabeynayaan waxay tahay taasi macnaha inaysan dawladdii ay wixii loo igmaday ama wixii loo dirsaday ay ku fashilmatay laakiin waxaan leeyahay aniga talada aan gudbinayo waxay tahay ummadda jarar weyne meel walba ay joogto dal iyo dibad waa inay ayahooda ka tashadaan waa inay is ogaadaan waa inay midoobaan waa inay dantooda u istaagaan waayahay insha Allah kulley adeer fikradaada way maqlooyin inta ku jirto inta aan ku jirina kulley facebookgayga ka arki karaan insha Allah fikirka wanaagsan aadna siisay waad ku mahadsantahay kuna soo dhawow facebookgayga waa ka haddii adoo joogin wax dhacana Yaxya Shuuko waad ka raadin kartaa YouTube-ka barta YouTube-ka marka adeer khayran ku rajaynaa insha Allah waan wada xiriirayna walaal wanaagsan oo adduunyada xumaantana iska celiya wanaagana isfara
aan noqono sida oo qolo lagu sheegay majmaca culimada Soomaaliyeed oo masaakiinta hortooda lagu dilayo ay hadlaynin oo kale aniga markaan ku arkay koofiyada aan arkay warniyo ma kubii u danaanin raba ayaan isiri maya kuwa uma danaanin raba waa runta adeer waxa waaye waa laga qawaafa dadkii diinta aniga dhagayso waanba ku diyaar garoobayba qorigay waan ku cabaystay maasha Allah laakiin si adaaba garabkaygu soo istaagayba maya sax waa adeer in xaqa laga hadlo oo wixii jira ee dadka loo sheegay waa wax muhiim wadaadada waxay tahay kaalintooda way ka gaabiyeen oo runta dadkii macnaha markay ummadda isqabato kitaabka ilaahay dadka lagu xallin lahaa siyaasaddiiba naga geliyeen diinteenni naga geliyeen marka waxaan leeyahay kuwaasna ilaahay naga qabto Soomaaliya oo dhan way dulman tahay dulanka Allah ka saaro especially beesha Jaraweyne adigana maasha Allah sida ugu taagan tahay annagana waa ku garab taagan haddana ummadda Soomaaliyeed adigana dadaalkaada meesha ka sii wad biidnillaahi kariim xaqa iyo xaq daradana waxa way meel ma wada gasho xaqa guuleysta mar waliba xaqa ku taagan tahay xaqana ku taagnaw ilaahay dhamaanteena xaqa inagu wada dilo آمين إن شاء الله شيخو إن شاء الله وبارك إن شاء الله هذا فيسبوك هذا موجودة والله سعودة وأنا إصلاح حريدنا إن شاء الله كريم كل هاي وحن جعلها حقوق الصوماليات ميلو البيت جوجان وقوي يكون فربة وحواي هرتا أنا ما بآمن سني بنين صومالي قبل أوتر قبل كان نين كان وحبكم ملها أنا ما آمن سني وارن لكن هو ذا shanta Soomaaliyeed waa isku mid hay adeer dad badan baa ku soo gali lahaa laga yaabaa waxba insha Allah dhageysta marka waana mahadsantiin dhamaantiin hay waay adeer hay adeer salaam alaykum salaam السلام عليكم السلام عليكم waxaan ku soo noqonahay haddana mar labaad aan farniin meeshan ugu gudbinayaa dadka meeshan ayto saddex magaalo unba gobolka hadda aan joogno ugu qiimo badan oo maanta Soomaali baantuunimada ay ku dheertahay sida la ii sheegay xafiisyo ay ku leeyihiin kan Utica anaaba tagay anaa arkay Syracuse iyo Buffalo-na waan arkay Syracuse baanan arkin marka walaalayaal waxaan rabay saddexdan magaalo inay isku timaado ayaga markaasayto ay macnaha shir ay abaabulaan oo banaanka loogu baxayo oo gobolada kale loogu tagayo inay macnaha abaabulaan saddexdan magaalo marka kadib odayaal aan saarano dad oo dhan ma wada baxayo odayaal aan saarano odayaashaasayto oo sidaasayto ku dagaal galaan ay macnaha UN lay noqdaa iyo safaaradaha oo dalalka meeshaanayto UN-ka iyo kulli way joogaan marka safaaradii aan u aragno inay macnaha dulmi dad wata ay ku taageerayso aan u aragno marka insha Allah biidnillaahi kariim marka reer Utica kullay waaba idin soo socda haddii ilaahay nafta igu simo cudurna ilaaha iga koriyo waxaan rabaa idinkaan idin macsuumanahay waad maqlaysiin Cornel Geedow adiga Cornel Geedow haddii lagu dhahay casuumadda inaad iga cagbashisin ayaan rabaa iyo ninkii maanta guddoomiye idin ah iyo wixii dhalinyartiina ah adi wixii maanta oo birmageyta ah oo maanta oo Soomaali baantu joogta oo maxaa dhigi jiray magaalada Utica waxaan rabaa inaad is aragno aan ka wada hadalno qawiyada masaakiintan iyo sidaan isu keeni lahayn shirin la dhiibo iyo tacasiil lacag loo diro iyo kaas waxba ma tarayo iyo hebela beer laga haysta inta lacag soo dhiiba ama ka wax ma tarayo beer lama haysan karo beerkii haysta loo dhaafo xilligiis oo maxaa la dhihi jiray Cabdirashiid ama kale siyaad bale beerihii la qaatay hadda dawladda markay dhacday nin walba beertiisii wuu haystaa war nin ka yimid maxaa la dhihi jiray maxaad ugu lugo aysan nin ka yimid maxaa la dhihi jiray goday ka yimid
muxuu idinka qaadi karaa kaas asaga wuxuu dilaya ha dilo wuxuu dhaafayana ha dhaafo meesha tan waxaa way arrinta in kor laga soo dhammeeyo meesha biyaha uu ka cabayo in laga soo xiro ayaga dhexdooda inay is arkaan marka ma ahan sidaa ma aha walaalayaalow aan is aragno aayahayna aan ka tashano marka insha allah biidni illaahi kariim xoogaa qaxootigana xoogaa arrimo iiga xiran oo hadda sidaa la ii soo gelooya marka waxaan raba inaan xagga aan u leexdo raallina iga ahaataan sheer garaysaan like aad dhahdaan oo maanta dadkii hadda maqnaana si ay u arkaan hadhoodii markii facebook ama youtube lagu shubo marka insha allah walaalayaalow cidda idinku xiran ha arkaan cidda aad siin kartaana siiya waxaanayto waan dhibboonay annaga dhibkaan ilaah baa naga qaadi karaa run way annagaa iska qaadi karnaa ilaahay intuu yimaado waryahooye yaxya shuukow dhibkii waa kaa qaaday ima dhahay laakiin waa inaan fal aan sameeyaa haddaan fal samayn waayo aniga dhibkaasayto igama tagayo weligiisaana ii saarnaana waayo dheh war niman yahow ma mise taariikhda ma haysaan war anaga waxaan ku dhashtay meeshaanayto gobolka jubbada hoose meesha qoladan shambarada la leeyahay ya aw nasiib buunda iyo magaalada nasiib buunda iyo kamtiire aw kalandiima aw miigwa dadkaasayto meeshasaan aniga ku dhashtay ma maqlaysaa aniga waxaan ogahay yaraantayda aniga waxaan ogahay yaraantayda liigu sheekeeyey in maanta oo dadkaasayto ayagoon waxba ahayn ayay iska celin jireen hadda idinka 1500 joogta wax dadka ku dilaa ayaa yaala laakiin dad dilmaba lagu lahaba ya dad dilow iskaba dhaafba war afkaaga wax ku raadso maxaa dad ku dili halo maam jula السلام عليكم. عليكم السلام ولا شيء واكم مغلا هلو مايا كم مغلا عد كامل فوق واي waxaa ku dhaha inta meesha ku jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi oo ku wada salaam kulli salaatu islaamka inta xalka ku wada jirto waa idin wada salaamay calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka waxa waaye caawa horta waa maqlay mabduuca ka hadlaysid maasha allah waa khayr allah ku siiyo waa wax loo baahan yahay horta oo dadka walaalaha maanta dhibka haysta laga hadlooyo aniga horta marka ugu horeysa waxaan dhihi lahaa problemka horta waxaa lagu xalli karaa ma ahan in la dhahayo dadka walaalahayda oo beesha jareer weyne oo Soomaaliyeed in la dhaho maanta annaka caawa shiiqooda muxuu u hadli waayey dadkaan jilac jareer waay ma dhihino ee kala yihiin Soomaali Soomaali intaas leeway Soomaali cid kale ma degto jilac iyo jareer unba dega صح taas runtaa waaye jilac jareer dego marka dad jalaacada in maanta la dhaho jilaacow maxaa wadaadadooda maxaa inoogu hadli weysa annaka hebelo dadkooda maxay wax noogu qabo waaye maxaa noola hadli horta kow waxaa la dhahaa tiisa daryeelo atoo kala daryeelo ma fahantay haye Soomaali waxa waaye horta dhibka haysato waa ujeed maanta dhibaatada haysato waxa waaye Soomaali haddaan nahay dhibaatadan haysato horta waxa waaye nafsigaas oo laga galay dadka walaalahayda dhibaatooyinka iyo dulmiga oo lagu korhaayo horta kow dhibaatada maanta taagan oo ilaa hadda xal loo heli la'yahay shalay toolena markii maanta madaxweynaha oo ballan kasta oo qaaday oo maantana inuu waqti u helaynin inuu ballanka ka baxay oo la kala fahmi la'yahayo iska jahwararsan goorbo gartay intaas waa kala fahmi la'yahay kow midda kale waxa waaye aniga waxaan qabaabo dadka walaalahayna oo beesha jareer weyne kow horta waxa waaye marka ugu horeyso waxaa fiican horta inay ayaga horta iska warqabaan ani sidaan filaayo baba iska warqabaan u malayna ayagaba dad haysto
oo isku toosan been maaha inay horta ayaga ay iska warqabaan oo maanta oo yarkooda iyo weenkooda iyo kii baahan iyo kii kale ay ka warqabaan maanta dadkooda ay gacan siistaan ma jirto waxa waaye inaa maanta ay dhahaan ayakana caaway maxaa shiiqan muxuu noogu soo hadli waaye ninka caawa ayaga beesha jireer weyne shiiq ma qabaan horta su'aal waaye taas maama juula ma ahan shiiqooda maxay noogu soo hadli waayeen ma aha meeshan waxaa waaye waxaa jira wax la yiraahdo dawlad iyo wax oo uluma oo dawladda ku xiran majmaca ulumada Soomaaliyeed la yiri majmaca ulumada Soomaaliyeed Soomaali jilec oo kaliya malaha Soomaali jireer iyo Soomaali jilecba waxa way majmacaasayto way u siman yihiin laakiin inkastoo Soomaali jireer aan waxba ku jirin marka maxaa la rabaa maadaama adiga majmaca tahay markii dhibaato oo maanta dhacdo cadadaraad markii oo maxaa la dhigi tukar raqma la dhaha ma aqaan dhibta ka dhacday iyo Soomaaliland way hadleen walaalaatiina isdilinay dheheen marka laakiin markii hoostooda dad lagu dilayo walaalaatiina isdilina maxay u dhihi waayeen waa majmici ulamada Soomaaliyeed oo dhan waaye waxay u dhahaynaan ku sheegaa aniga sida ila tahay waxay u dhahaynaan waaye adiga dadkaagaas oo maanta aad dhahaysid labadaas meesha joogto oo lacag inta la siiyo oo dadkooda sii gadanayo waxa u keenayo waxa waaye dhibaato oo maanta ayaka haysata aniga u fahmay maxaa dhacay dadkii oo maanta jareer weyne ahay dadkoodii waxaan u filaa sidaa aniga fahmayo dibadda inay usoo kala maqan yihiin oo maanta inta dalka joogta inta dibadda joogta inta oo qurba joogta ay badan tahay marka dadkaas ma ka warhaayaan dadkoodii xagga jiro ma ka warhaayaan dhibaatada haysato baahidooda maanta dulmiga iyo waxa loo adiga qofkaaga markaa gacanta ku haysid qofka kalena wuu fahmaa qofka inay qof leedahay oo laga warhaayo laakiin dadkaaga haddaad dayrisay aad dadkaada adag ka warqabin labadii qof oo meesha joogtayna baahiyaa qabatay kii ka hor imaaday gadanayaan dhulkii ay gadanayaan dadkii ay gadanayaan noloshaas isaga nool yihiin ani sida u fahmo marka horta koo waxa waaye inaa horta dadka waxaa la rabaa sida maanta jileec dad isku xiran waaye dad isku xiran oo iska warqabo waaye laakiin aniga waxaan fahamsanahay sida aan u fahmo waaye ani fikradayda ma iska warhaayaan dadkan walaalahayna oo Soomaalida oo jareer weyne ah sida u fahamsanahay iskama warhaayaan marka dhibaatooyin badan aan aragnay shabeellada dhexe shabeellada hoose dad badanaa lagu dilay dhalinyaro badanaa lagu dilay oo maanta wax ka qabanay laheen maanta nin fara dheer maalintii la dilo ninkiisa geedkaa loo keenaa laakiin ninkaan ma la keenayo maxaa loo keenaynin kii meesha joogay oo asagaba la rabay inuu u hadlo oo dhihi lahay ninkaa hala soo qabto ma hadli karo baahi hayso kuwaan kaloo ku xiran yahay kistiisaa jaabka loo gelinaa waa ka socdaa meesha howshaas waraarkaasba bahaayo waxaana sababay dadkooda qurba joogta aan ka warqabin dadkooda horta ma iska warqabaan isku xiran yihiin oo ma tagaan dadkaas inay xagga tagaan ma wacdaan oo ma la shiraan ama inta inay ka casuuntaan ma wacdaan dadkooda ma la fariistaan oo ma ka warqabaan ma iska warhaayaan marka ani ahaanteeda iskama warhaayaan kow muhiimadda waxbaa hor dadka inay midoobaan ee isku xirmaan ee iska warqabaan oo maanta dadkooda xataa dhallinyaradoodi waa aragtaa hadda dhallinyarada mid ka soo baxa gaari gacnada iska riixaa dadkan ilmahooda way ku dadaaleen oo waxbarashay siiyaan buug ilaabisay siiyaan maanta waxay horumarkooda ka fikiraan laakiin dadkan ma ka fikiraan hadal facebookgaas la soo galaa ninkas wuxuu rabo iska sheego iska daadacsanaa dadkoodana baahi iyo meelaha caga barar iyo wax biyo qaada iyo wax meelaha lagu dilo iyo saasay u dhammaadeen wax ka warqabo maanta oo qurba joog ma arkin sida aniga filaayo kolley waxaa waaye wax kastaba horta mar unbay bilaabmaanee kolleyba Facebook laf ahaantiisa hadda unbaa la bilaabay maayo Facebook hataa laguma hadlo marka waxaa waaye waxaan hadda aan leenahay buwayba aan leeyahay waryaa hooy North America imisaa degan inta hadda anigi i fiirsanaysana 10 ruux kama badna marka maxaa ku dhacay ayagana haddii hataa naag jecelka sheekaynayso kun iyo dibbiyu waa soo gelaysaa mugo wixii kale iskaba dhaafba marka waxa waaye insha Allah biidhnillaahi kariim
khayran ku rajaynaya maamoy anigana gabar baa iwaalaysa oo aniga aan dhalay oo kaa kuma joogto oo ayaan raba inaan u galo marka raaliyeed iga ahaanaysaan inta أنا وحلا ديلاي walaalkay waxaa la dheelaay dadki meel kastay joogaan dadka walaalo horta Soomaali meel ay ka imaadaba waa wiili abtigiisa wax ay wada dhashay maanta dad isku rabaan laakiin dadkaan nin kastaba dadkiisa way ka warqabaan dadkaana dadkooda inay ka warqabaan ha isku dayaan ay midoobaan ay maanta ay dhibkooda dhibaatada haysta kii kale ay ka warhayaan وإن شاء الله بإذن الله الكريم خيرا كورجينا مساكين قال الدلينا أسنا نهاريستي جنا الله سيو عدو كبحينا سمري إيمان الله سمري إيمان الله كسيو معلن سعيد مركا أنا وبها جبربا معنا igu soo waalatay aniga aan dhalay oo qaxootiga joogta wixii jirana war uma hayo marka halkaasaan u leexana dhammaantiin waa salaamantiin reer Utica yeer Syracuse reer maxal dhigi jiray Buffalo idinkana waan idin salaamaya reer Utica bishi saddexdeeda kulley waan idin iman doonaa dadka kale intii aan meesha ku arka ayaan ballan la dhiganaya kulley waqti barafa waa la dhaafay markastaan ummadaanayto aan isugu xiri lahayn insha Allah biidnillaahi kariim cidda meelahaas kale joogtana waxa way sida macallin Saciid oo kale kulley ba xiriirin ayaa markaasayto aniga ayaa idin xiriirina shirka inta socdo marka khayran idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu